magaalada Baran ayaa maanta galinka damagaca soo caga dhigtay diyaaradan sidee gargaarka caafimaad oo isugu jirtay dawooyin iyo qalabka caafimaad tala galay in laga hortago cudurka COVID-19 markii diyaaradaasi soo gaadhay magaalada Baran ayaa halkaas ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir oo mahad cushay dawladda federaalka Soomaaliya oo isagoona ku wareejiyay dawooyinka iyo qalabka caafimaad isku duwaha degmada Baran ee caafimaad awalan ilaahay baa mahad leh marka xiga waxaan u mahad celinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta oo bishu ay 20 tahay deeq caafimaad oo ah qalabka COVID-19 agabyo ka kooban ugu soo gaarsiisay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana gudoonay sidoo kale dawladda Puntland oo iyaduna qayb ka ahayd inay gobolka timaado diyaaraddu iyo agabka caafimaad ee sidaba iyadana ugu mahad celinaynaa waana gudoonay aad iyo aad baan insha Allah ugu mahad celinaynaa insha Allah meelihii loogu talagalayna insha Allah waa wada gaari doontaa iminkana waxaan ku wareejin doonaa isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Amaal agabkaas oo ka kooban 210 kartuun insha Allah waxaan ku wareejinaynaa isduwaha wasaaradda caafimaadka oo goobjoognala baan ku wareejinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi maanta halkan waxaan noo timid deeq dawladda federaalka noo soo dirtay wasaaradda caafimaadka qalab ku saabsan xanuunka COVID-19 oo u mahad celinaynaa anoo mataliya wasaaradda caafimaadka gudoomay 210 kartuun oo insha Allah baahida gobolka oo dhan xarumihiisa oo dhan lagu daboolayo insha Allah shacabka dhalinyarada deegaanka Baran ayaa soo degmada Baran ayaa soo dhaweeyay deeqdan diyaaradii dawladda federaalka ay u soo dirtay gobolka kan gaar ahaan degmada Baran iyo guud ahaan gobolkaba alxamdulillah waana soo gaadhay deeqdii dawladda federaalka si fiican ayaan ugu mahad celinaynaa dawladda federaalka dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshaas fududeynteeda iyo shaqadeeda aad baan uga mahad celinaynaa waxaan gobolka Sanaag waxaan aad ugu mahad celinaynaa waliba xubnaha ugu sareeya dawladda federaalka ugu dambeyn halkaasi waxa ka hadlay agaasimaha laanta Baran ee hay'adda socdaalka iyo sanjidaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Khaliif Faarax ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay inay soo gaarto dawadii maxaan ku raahday ay soo dhiibtay dawladda federaalka runtii waxaan u malaynayaa maanta waa maalin ka duwan maalmaha kale maadaama ay deeq ka timid dawladda federaalka ay halkan si toos ah u soo gaartay waana uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka soo shaqeysay waxaan u malaynayaa su'aal wax badan la weydiinayo 4 sano ah oo la lahaa dawladda federaalka ah meeday waxaan rajaynayaa maanta insha Allah inay bilowgeedii tahay su'aashaasina insha Allah ta'ala ay madaxdu maqli doonaan wax badan baa la weydiinayay laakiin waxa leeyahay geela markii lagu heesayo waxa la yiraahdaa indhayala lowkiisa oo man ila nacaymood oo ilmada sayr oo si loo yahay baa la yiraahdaa waxaan leeyahay dawladda federaalka ay way noo soo jeensantay insha Allah waana tan hadda wixii ugu horeeyay in soo gaarsiisay cid kasta oo ka soo shaqeysay maxaan ku raadayay isduwa caafimaadka maayarka gudoomiyaha dhamaantii waa ku mahadsantii baa leenahay walaykum saraakiisha xildhibaanadii iyo wasiiradii ka soo shaqeeyay oo ka soo jeeday deegaankan iyagana runtii waxaan leenahay si mahad gaar ayaan u celinaynaa saxaafadda oo iyaga ruuxadooda ilaa saaka taagna waxaan leenahay idinkuna aad iyo aad baa mahadsantii